والصلاة والسلام على رسول الله. وزير دولها حفيزك رئيس الوزراء وزيرك وحبرشدة دوميها حريريها هيئة جدية فرسمة يعرفها دورشوينك أو رئيس الوزراء مجعبي عاد mahadsantihiin maanta waxaan anigu soo jeedin doonaa oo aan ka hadli doonaa qaybta ku aadan gudiyadii doorashooyinka oo la magacaabay oo ah cidda iskale sharci ahaan in ay fuliso doorashooyinka dadban ee heer federaal. sharci ahaan waa gudiyo madax bannaan oo u xil saaran inay soo saaraan xildhibaanadii golaha shacabka iyo xildhibaanadii aqalka sare ee baarlamaanka si gudiyadaas loogu fududeeyo inay shaqooyinkooda qabsadaan. waxay u baahan yihiin marka ugu horeyso sida uu sheegay xiriiryaha in la isu keeno kadibna loo tababaro shaqadooda. maalinta 27 bishan juun waxaa loo u bilaaban doono gudiyadaas tababar 4 maalmood socon doono oo lagu bari doono arrimo ay ugu muhiimsan yihiin kow in maalintii ugu horeyso loo furo oo laga saxiixo xeer dhaqan ku saabsan hufnaanta doorashada oo ay saxiixi doonaan dhammaan guddiga amniga doorashooyinka qaranka, guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka, gudiyada heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka. arrintaas waa arrin daba socoto ballanqaadkii ra'iisul wasaaraha ee ku saabsanee dalka in laga hirgelinayo doorasho xor iyo xalaal ah. 4 maalmood ujeedooyinka kale oo tababarka loo siinayo waxaa ka mid ah in gudiyadu bacdamaa ay leeyihiin howlo kala duwan oo ay guddiga federaalka howlo leeyihiin, guddiga heer dowlad goboleedna howlo kale leeyihiin, gudiyada xalinta khilaafaadkan howlo ay leeyihiin, guddiga amniga doorashooyinkana in ay isku tababar qaataan maadaama ay ka wada shaqaynayaan hal howl ah in dalku ka dhacdo doorasho oo mid walba midka kale oo yaqaano doorkiisa shaqo si ay u fududaato xiriirkooda iyo wada shaqayntooda. arrinka kaleeto oo muhiimku ay u tahay in tababarkan la siiyo waxaa ka mid ah in lagu tababaro siday u diyaarin lahaayeen qorshe howleedkii doorashada maalinta ay bilaabato tababarkooda ilaa iyo maalinta qofka ugu dambaysa oo baarlamaanka ah la doorto, kaas oo la yidhaahdo qorshaha howlgalka doorashooyinka oo la-aantiisa aysan dhici karin oo wax walba lagu xuso. waxaa sidoo kaleeto ay muhiim u tahay in ay ku bartaan 4 maalmood oo tababarka socdo bacdamaa doorashadan aysan ahayn mid sharci doorasho lagu hirgelinayo, waxa lagu fulinayana ay tahay heshiisyo siyaasadeed inay bartaan heshiisyada hagaya doorashada oo ay ka mid yihiin heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ama 2020 iyo sharcigii baarlamaanka ee 26 Sebtembar doorashada dadban wadanka loogu diray iyo sidoo kaleeto habraacyada lagu fulinayo doorashooyinka dadban oo 1 Oktoobar 2020 ay isku raaceen heer dowlad federaal iyo dowlad goboleed iyo sidoo kale kii ugu dambeeyay oo 27 May 2021 ra'iisul wasaaruhu uu shirgudoominayay ayaa saldhig u noqon doono oo ay hagi doono. kuma filna heshiisyadaas doorasho in lagu fuliyo. doorashadu waxay u baahan tahay habraacyo iyo xeerar lagu fuliyo oo ay ka mid yihiin xeerka iyo waajibaadka shaqo oo ay ku shaqaynayaan gudiyada, sidoo kale xeerka iyo waajibaadka shaqo oo ay odayaasha dhaqanka iyo kaaba qabiilada jufooyinka ay ayaguna ku shaqayn doonaan. sidoo kaleeto ergooyinka wax dooranaya xeer ay ku shaqaynayaan iyo habraacyo oo fududeynaya sidii wax u dooran lahaayeen. sidoo kaleeto warbaahinta iyo
korjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah ayagana waxay lahaan doonaan xeerar iyo habraacyo hagaaya sida ay ku imaanayaan goobaha ku tegayaan u tabinayaan wararka marka habraacyadaas iyo xeerarkaas dhammaantood waxay u baahan yihiin gudiyada maalintii la abuuro ilaa iyo maalinta ugu dambaysa in lagu tababaro sidoo kale waxaa mar walba farsamo ahaan ay u baahan doonaan oo tababarkan hadduu dhammaado aan ka haraynin in la tababaro howlwadeennada oo ka shaqaynaya goobaha doorashada iyo codbixinta oo u noqon doono dad ka baxsan gudiyada oo shaqaale ku meel gaara noqon doono waxaa intaas dheer gudiyadan lagu tababari doonaa doorashada intay socoto 3 caqabadood baa ay la kulmi doonaan arrimo u baahan go'aamo siyaasadeed oo intay ku jiraan doorashada soo bixi kara sida arrimaha la xiriira kootada haweenka waxaa soo bixi kara ayagana arrimaha la xiriira doorashada aqalka sare ee Soomaaliland in go'aano laga gaaro qaabka ay ku imaanayso waxaa soo bixi kara sidoo kale arrimaha amniga iyo maamulkoodii waxaa sidoo kale intay doorashada ku jiraan soo bixi doona arrimo badan oo farsamo oo u baahan in go'aano laga qaato iyo arrimo la xiriira arrimaha dhaqaalaha dhammaantood gudiyada arrimahaas haddii ay la kulmaan waxaa lagu tababari doonaa halka ay ka doonan doonaan xalkooda oo ah in loo soo gudbiyo guddiga farsamada si ay u falanqeeyaan xalal kala duwanna uga soo jeediyaan ayagana markaas ay u gudbiyaan golaha wadatashiga qaranka si ay go'aan uga qaataan golaha wadatashiga qaranku go'aano siyaasi ah iskama qaadan karo haddii aysan jirin koox farsamo oo u soo diyaariso xuluul ama khiyaariyaad kala duwan oo arrinkaas caqabada ah xal looga gaari karo marka waxaa markaleeto aan rajaynaynaa waxyaabaha inay ka soo baxaan aan rajaynayno traininkaas ama tababarkaas 4 maalmood ah oo gudiyada la siinayo waxay noqon doonaan kow inay isku raacaan xeer dhaqan ka hufnaanta doorashada 2 inay ka soo baxdo qorshe howleedkii fulinta howlaha doorashada 3 in ayadana ka soo baxdo timetable-kii ay isku raacaan oo ay soo saaraan feed oo doorashada lagu qaban lahaa intaas ayaa output-ka ugu weyn oo ama wax laga rabo inay ka soo baxaan u noqon doonaan waxaan dadka u sheegaynaa mar kale ku celinaynaa gudiyadaas doorashadu waa gudiyo madax bannaan shaqadooda u madax bannaan guddiga farsamada ee ra'iisul wasaaruhu uu shaqeeyay waxay ka caawin doonaan xagga xiriirinta iyo xagga tababarada iyo xagga talooyin farsamo inay siiyaan haddii ay u baahdaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.